yeah, that's right. I've never been to Brazil, so I've been 10 years old. waxaan halkan maanta sharaf ii ah inaan ku soo dhaweeyo xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ah safarkii ugu horeeyay uu ku yimid sidii uu u noqday xoghayaha guud aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii waxa uuna halkan u yimid arrimaha ku taxalluqa abaaraha Soomaaliya ku habsaday sida ogtihiin xoolo badan iyo dad waxa bilaabay dadkii inay hadda la'daan oo ay maaragtay dhimashadu bilaabato xoolo badan ay ku la'daan in uu soo booqdo abaarahan una runtii waxa la wixii taageera uu ka geysan karo uu ka geysto adduunkana uu sheego dhibka maantana haysta intuu leeyahay waxaan ka hadalnay arrimaha security-ga aan ka hadalnay ammaanka iyo sidii dadkaasi dhibaataysan oo tabaalaysan wax loo gaarsiin lahaa. And the reason why I came to Mogadishu and Baidoa is very simple, to express my deep solidarity with the Somali people. Sababta aan u imid Muqdisho iyo Baydhabo way sahlan tahay. Waa inaan si xoog badan u muujiyo sida aan u xanuunsanayo xaaladda hadda haysta dadka Soomaaliyeed, isla markaana qorshe iyo awoodba loo helo. Waxa macnaha xooggan sameynaya waa inaan si buuxda uga dalbano beesha caalamka in ay Soomaaliya taageerto xilligan. Toddobaadkii tagay aniga oo jooga New York waxaan fursad u helay inaan dhambaal xooggan u diro dhammaan bulshada caalamka si loo helo qorshe looga hortagayo abaarta ka jirta afar dal oo kala ah Nigeria, Koonfurta Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya. International community in order to avoid a tragic development of famine in 4 countries in the world, in South Sudan, in northeastern Nigeria, in Yemen and in Somalia.